السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتك كتب إلهي سبحانه وتعالى يا مهد الصلاة إلهي سوكن سوعلي. الحمد لله رب العالمين. مركا إن شاء الله ما أنت محاربي عبيتاني نعم إن شاء الله كره الله آد فايدة بدن وعجيبة وحال معجزة ويان عجيبة إلهي سبحانه وتعالى ودرتينا كسو صاري إن شاء الله كل عربي وحال يرضى الكرافس بالرضا إنجليش كنا سيلري بالرضا إن شاء الله وسيلري ما شاء الله ومعجزة عجيبة ويان إلهي سبحانه وتعالى وأرلدينا كعبوري مركا أنك فايدي سنو واجد مهمة إن شاء الله واجد مهمة أصحابتها waxay nafteedaan la jecel idinkana waan la jecelahay ee wanaagsan insha Allah waxa kale oo la yiraahdaa carabtu barigii hore qadiim waqtigii hore waxay oran jireen casiir al-muluk waxay oran jireen sharaabkii boqorada jiray aba la dhihi jiray barigii hore casiir al-muluk imikana casiir al-krafis baa la yiraahdaa insha Allah waxa weeyaan cabitaan weeyaan aad u wanaagsan إن شاء الله بريس وشيء الصومالية وحلقوا هذا جيت كاسي إن شاء الله عربي جاي إنجليش وما كنا يعني لكن إن شاء الله الصومالية أنا بالإيجا إن شاء الله جيت كان إن شاء الله وحايدكوا بورينيا إن أدعفتين فائدة بدن عافيمات بدن أيات كهلسين إن شاء الله بإذن الله الكريم لو ويك جوديهيس لو ويك أيات أركسا واحد شركة إسبدل كل عي haddii aad aragtid 2 week gudaheed waxa isbedel ku arkay insha Allah komadka hayga iloobin insha Allah isoo sheeg waxa weeyaan isbedel badan ay isbedel ku riday insha Allah asxaabteedan waxaan rabaa inaan soo gaarsiiyo geedkan faa'iidadu leeyahay krafiska amba celeryga horta fitamiinada oo dhan waa ku dheeyihiin ma sha Allah fitamiin ka baqan ma jirto fitamiin alif وكجرا فيتامين سي فيتامين بي ام بالف وحان بابا ام بكي وكجرا ما شاء الله وحاكلو كجرا مغنيسيوم ما شاء الله مغنيسيوم بكجرا حديد كالسيوم ام بكالسيوم ايا كجرا ما شاء الله وحويان فيتامينات بدن ايا كجرا marka magnesium kaas aad bu faa'iido leeyahay wuxuu kaloo siinayaa jirka awood ayuu siinayaa qofka uu daciifiyay maadaama waxaas oo fitamiin uu ka helay ma sha Allah jirkiisu awood bay yeelanaysaa marka insha Allah fitamiinaadka badan maadaama ku jiro goormaan isticmaalaynaa insha Allah amba goormaan cabaynaa waxa aan idinku waaninayaa 2 week gudaheed inaad ku ogaan kartiin insha Allah isbedelka jirkiina waxaad cabaysaa waqtiga subaxda aad hurdada ka kacdid calooshaada oo faaruqa aan waxba gelin ayaad cabaysaa isaga ayaad ugu horeysiinaysaa koob ayaad cabaysaa subaxda hore markaad hurdada kacdid markaad salaada subax tukatid koob geedkaasi celery amba krafis ayaad cabaysaa koob ayaad cabaysaa insha Allah way noo sameyn doonaa koobkana calooshaada oo waxba ku jirin oo faaruq ayaad cabaysaa ma sha Allah isbedel ayaad arkaysaa biyo badan buu leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku abuuray waxa weeyaan biyaha badani jirka oo dhan ayuu safeynayaa dhiigga ayuu safeynayaa ma sha Allah dhiig ayuu safeynayaa muxuu ka dawo yahay wuxuu ka dawo yahay dhiig karka uu dejinayaa wuxuu kaloo ka dawo yahay macaanka xanuuno badan ayuu ka dawo yahay wuxuu kaloo ka dawo yahay azmada dadka ku dhacda wuxuu kaloo ka dawo yahay qofku markuu hindhiso ku waasho amba laabta ayuu nadiifinayaa wuxuu kaloo ka dawo yahay cuntada ayuu ku furayaa laabtaada hawada qofka ay hawadu dhibayso oo naqasku qabanayo waa u dawo ma sha Allah wuxuu kaloo u dawo yahay beerka ayuu safeynayaa beerka ayuu ka shaqaysiinayaa oo safeynayaa waxadii uskagu ku jiro ma sha Allah weeyaan wuxuu kaloo soo saarayaa dhagaxda ayuu ka daadinayaa jirka maadaama uu biyo badan ku jiro biyahaasi dhagaxda ay ka soo saarayaan jirka
amba keliyaha kaaga jiraan amba beerka dhagaxaanta kaaga jiraan waa safaynayaa maasha allah weeyaan biyo badan waxaan kuuli biyo uma baahnaanaysid isaga ayaa biyo badan ku jira marka maadaama oo Soomaaliland biyaha waa inuu adag yahay inkastoo loo baahan yahay biyo badan la cabo kana biyo badan baad ka helaysaa maasha allah jirkaagana waa safaynayaa dhiigga wuu safaynayaa maasha allah waxoo kale dadku markay allergiga qaadaan ee jirka iska xoqayaan insha allah waxaa rabaa inaan gooni uga sheekeeyo jirka haddaad iska xoqaysid finanka cascas oo kale kaasoo baxaan xayawaan hadduu ku qaniino waxaasoo dhan waa ka dawo crafisku marka maasha allah ilma galeenka waa ka dawo halka ilmuhu ku jiraan waa ka dawo haddii ku xanuunayso amba hoosta haddii ku xanuunayso waa dawo waxaa intaa hoosta u dhan haddii ku xanuunayso isagoo qulis markaad cabtid uu clean garaynaya uu nadiifinaya waxaa ku jiro dhan marka aad insha allah dadku markay waaweynaadaan awood buu siinayaa dadku markay waaweynaadaan awood buu siinayaa waxa weeyaan awood markuu siiyo sonkor yar bay ku darsanayaan awood ayuu siinayaa markay cabaan dadkaas waa dadka waaweyn laakiin waxa weeyaan haddii aad maad aragtay sidaa naqaska oo kale ku qabanayo faa'iido ku leeyahay waanu sheegnay waqtiga la cabayo subaxda hore ayaad cabaysaa koob faa'iidada uu leeyahay waan ka hadalnay waxaan rabaa insha allah dhibaatadu leeyahay inaan ka hadlo insha allah dhibaatadu leeyahay haddii aad isku badisid kaliya xanuun baa laga qaadayaa la iskuma badinayo waxaa idhi koobka subaxda hore koob haddaad cabtid haddii hurdadu kugu yar tahay koob haddaad cabtid markaad seexanayso horteed yar kolkaa waad dhacaysa waad seexanaysaa maasha allah hurdu kuu keenaya haddii ay hurdadu kugu yar tahay haddii kale waa sharaab casiir ah qofka bilaadanki 2 jeer uu cabi karaa maalintii amba 3 jeer waa si sharaabka oo kale waa sharaab casiir caadi waa sharaab la cabi karo laakiin in badan ha cabin dhibaato ku keenaya ayoo kale dhibaato ku keenaya dumarka uurka leh hadday isku badiyaan ilmaha ayuu dhibaato u keenaya ilmahaasi wuxuu noqonayaa ilmaha xanuunsanaya amba uu soo daadanaya waa la fahmaan u malaynaya waxa weeyaan gabadha uurka leh inay isku badin koob way cabi kartaa laakiin hadday isku badiso ilmahaasi amba disable buu noqonayaa qof xanuunsanaya uu noqonayaa amba uu soo dhacayaa labada marba way dhici kartaa marka inaa la isku badiyo ma waxoo kaloo keenaa haddaad isku badisid madax xanuun badan ayuu keenayaa waxoo kaloo keenaya haddaad isku badisid sanbabada inuu dhibaato ku keeno marka insha allah aniga haddii hurdada qofka ku yartahay waxaan odhan lahaa hurdada horteed koob ha cabo subaxda horena koob ha cabo haddii hurdadu caadi u tahayna aniga waxaan kula talin lahaa 2 koob inuu iska cabo haddii ay hurdalaanaysana 2 koob inuu iska cabo haddii kalena waa sharaab casiira waa la garanaya wixii la isku baday inay dhibaato leedahay subaxda hore unba koob cabisa galabtana koob baad iska cabisa 2 koob ha ka badsan insha allah waa idin sheegay dhibaatooyinkay leeyihiin faa'iidadu leeyna waan ka hadlay haddii uu qofku maxaa la yidhaahdaa jirkiisu leeyahay cuncun amba allergy uu leeyahay uu jirka iska xoqaayo faa'iido badan buu leeyahay laakiin waxbaa lagu darayaa geedka lagu darayo ma hayo waxaa lagu darayaa zayt alwarad ma alwarad baan hayaa laakiin zayt alwarad saliida ma alwaradka oo kale ayaa lagu darayaa waa faa'iido badan iyo crafiska markaad ridqdid ayaa isku dhex daraysaa waxaad marsanaysaa jirka waxaan ku dadaalay insha allah inaan ka soo hadlo oo sawirkan tuso dadka xanuunka leh insha allah marka waan ka hadlay dhibaatadu leeyahay faa'iidadu leeyahay fitamiinaad oo dhan baa ku jira magnesium sodium fitamiinaad oo dhan baa ku jira uma baahan ba fitamiinaad cabisi sharaabkan ma sha allah dadka cadaanka aad buu cabaan haddaad ka aragtid youtube-yada aad buu cabaan marka waa faa'iido badan ayuu crafis leeyahay amba salarigu aad buu faa'iido leeyahay dhiikarku dejinaya macaanka xanuuno badan oo jirka ku dhaco dhan waa hagaajinaya marka insha allah waxaan rabaa inaan maraba inaan cajiradana badiyo insha allah cuntada kale oo kuu furaya gaajo ma dareemaysid markaad cunaysid cabtid ma sha allah waxaan ku yiri kaliyaha
waxa weeyaan haddii aad isku badisa qurisa dhibaato u keenaya laakiin waa maxay faa'iido badan buu leeyahay jirka dhan buu safeynaya biyihiisu jirkaaga oo dhan ayuu kalin gareynayaa wuxuu kaloo faa'iido u leeyahay midhaqiraha kansarka ku dhaca faa'iido u leeyahay kansarka uu ka hortegayaa oo waxa weeye xanuunada caloosha ku dhaco oo dhan ayuu ka kalin gareynayaa caloosha marka asxaabay ka faa'iideysta 2 wiig gudaheed jirkaaga wuxuu ka dhigayaa qurux wejigaaga waa isbedel baa ku dhacaya wuxuu kaloo faa'iido u leeyahay wejigaaga indhaha hoostiisa haddii ku madow yihiin waa kaa kaxaynaya nadiif buu kaa dhigayaa maasha allah biyo la-aanta ayaa keentaa layidhi marka insha allah biyo markuu keeno jirkaaga wuxuu ka dhigayaa bacbac oo kale qurux buu ka dhigayaa jirkaaga wejigaaga qurux buu ka dhigayaa adigaa dareemi bal 2 wiig ha la isticmaalo asxaabay 2 wiig isticmaala insha allah komadkana hayga iloobina 2 wiig wejigaaga sida markaad wejiga u taabatid acuudu billah maasha allah baan kuuri maasha allah wejigaaga haddaad taabatid isbedel weyn baa ku dhacaya waxa weeyaan wejiga ma ahaanayo sida dadka stress ku dhaco wejigu bararo wejigaaga qurux buu ka dhigaya ogow oo kale waa lagu dhuubnaadaa oo dadka doonaya inay isdhuubaana way cabaan waxa weeyaan wuxuu fiican yahay jirkaaga ayuu waxa biyaha ka saaraya badan oo uu kalin gareynaya marka waxa weeyaan jirkaaga waad dhuubnaan kartaa marka waxa weeyaan faa'iido leedahay qofka hadduu buuran yahayna waxa weeyaan faa'iido isaga qudhiisa u leeyahay oo uu ku dhuubnaanaya asxaabay marka insha allah 2 wiig gudaheed subax walba dad koob cabtid insha allah komadka iga iloobina waxaa idiga rajaynayaa farxad inaad ka dareentiin iyo caafimaad iyo wanaag inaad ka dareentiin wax kaste maskaxda wax kaste waxa weeyaan uu kalin gareynaya asxaabay insha allah ka faa'iideysta graphiska insha allah waan soo ridqayaa idinkana insha allah ka faa'iideysta sida xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam laa yu'minu axadukum xataa yuxibba li akhiihi maa yuxibbu li nafsihi waxaad naftaada la jeceshahay ayuu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka kalena la jeclow marka waxaan naftaada la jecel idinkana waan idinla jecelahay insha allah aan isku soo ducayno anna waa idiin soo ducaynaya idinkuna ay soo duceeya insha allah 2 wiig gudaheedna jawaab baad ka helaysiin insha allah haddii aad nidaam ku cabtid subax walba haddaad cabtid isaga iyo korianda amba kamsarada waa dawo labaduba waa dawo laakiin maanta waxaan isticmaalaynaa graphiskaasaan isticmaalnaa insha allah ha laga warkeeno ban insha allah jawaabta idinka sugaya 2 wiig gudaheed ayaa ka faa'iideysan doontiin insha allah asxaabay wakaasi xabad baan ka goosanaynaa insha allah kaas waa koob ayaan ka sameynaynaa insha allah waxaan rabaa intaa dambe inaan ka goyno intaa yara dambe haddii intaa laga gooyo dambe waxa weeyaan geed uu kuu beerayaa matalan dadka afrika jooga oo kale ha beertaan intaa dambe dadku ma tuuraan intaa yara dambe waad qaadaysaa camuudaad meeshaad qodaysaa camuudda waad beeranaysaa khaasatan dadka afrika jooga a ka faa'iidaystaan intaa dambe ayaa la beerayaa isaga oo kale ayaa soo baxaya insha allah waa mucjisooyinka ilaahi subxaanahu watacaala faa'iido badan ayuu leeyahay geedkana marka waxaa inoo soo sheegay intaa dambe unbaad goynaysaa ha tuurin haddii afrika oo kale joogtid iska beero insha allah ilaahay subxaanahu watacaala waa kuu bixi doonaa insha allah kan ayaan maanta koob ayaan rabaa inaan ka sameeyo insha allah waan goynayaa halkaa dambe waan ka goynayaa insha allah intaa kale ayaan soo yaryaraynaya waan soo ridqayaa insha allah waanigaa gogoye insha allah waan ridqayaa insha allah waan soo ridqayaa biyo isagaa baad arkaysaaba waa biyo socda biyo weeyaan maasha allah jirkeenuna biyo ayuu u baahan yahay waxa qura aan ku soconayno waa biyaha hadduu qofku biyo cabi waayo waxa weeyaan jirkiis waa istaagaya marka insha allah aan ka faa'iidaysano geedkan salariga khaasatan dadka waaweyn hala siiyo qof kaste faa'iido u leedahay marka insha allah hala cabo ciyaalka yar moojaan laakiin insha allah dadka iska waaweyn faa'iido badan baa u leedahay dhagaxaanta keliyaha beerka gebi waan kasoo wada hadlay dhiigkarka sonkorta xanuuno badan oo dadka ku dhaca laabta asmada waxa weeyaan hindhisada badan waxaasoo dhan ayuu kaa kalin garaynayaa insha allah 2 wiig gudaheedna insha allah bal idinkana jawaab baan idiga sugaya 2 wiig insha allah gudaheed subaxda markaad salaada ka bacdi inaad cabtid maasha allah wejigaagana qurux ayuu ka dhigayaa
waan arki doonaa insha allah. asxaabay wakaasi waan soo meydhayaa ama waan soo dhaqayaa insha allah. marka waan soo radqayaana waad kusoo dhawaan doonteen insha allah. marka koobka biyaha ayaan ku shubayaa siduu u noqdo koob oo loo cabi karo, qofku koobka u cabi karo insha allah. marka wakaasi koobka biyahan ku shubayaa. waxaan kaloon idiin sheegaya asxaabay, haddii aad leedahay dhiikar iska ilaali bambeelada. sharaabka bambeelada aad buu u dhanaan yahay, waxa weeyaan dhiigga ayuu kicinayaa. maca haddii aad kiniinka cunaysid dhiikarka waxaa ku qoran inaan la cabin. sharaabka haddii aad dhiikar leedahay iska ilaali, aad buu u dhanaan yahay insha allah. waa crab fruit, waa sharaab aad u dhanaan, laakiin waa maxay dhiigga ayuu kordhiyaa, laakiin qofka dhiikar kale uma fiicno inuuna cabin. waxa weeyaan haddii aad kiniinka aad cuntidna kiniinka buu ku qoran yahay inaad la cabin sharaabka. kiniinka ayuu ku qoran yahay oo kule iska ilaali sharaabka inaad kula cabin. marka insha allah hala kala ilaaliyo waxa lala cunayo haddii aad kiniin isticmaashiin insha allah. haddii aanad kiniin isticmaalina oo dhiikar leedahay iska ilaali bambeelada. waxa weeyaan dhiig ayay kicinaysaa insha allah, iyo milixdaba hala iska ilaaliyo. waxa dhanaan oo dhan dhiigu kiciyaa. marka insha allah asxaabay wakaasi maasha allah waan dhameeyey. koobkaasoo noqday koobka inoo sameeyey casiirul crafis amba salarigii insha allah. marka asxaabay kusoo dhawaada, aad baad u mahadsantihiin subscribe-ka iyo waasha awariska insha allah. idinkuun baa kor ii qaadi doona insha allah. waxaa idinka rajeynayaa insha allah inaad kor ii qaadiin insha allah. soomaaliya aad baan idiin salaamaya dhammaantiin. aniguna insha allah waan dadaalayaa, idinkuna waxa weeyaan subscribe-ka iyo waasha awariska iga soo kiciya insha allah. aad baa idiin salaamayaan, waan iisoo duceynaya, idinkuna iisoo duceeya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.